waxaan waa siyaasad madaxweyne haddii aad ku guulaysatid na soo ogow annaga ra'iisul wasaaraha kaa rabtid ugu maskiinsan tabartana macnihii ka qaad haddaa rabtid horta siyaasadda meesha loo boodaayo oo hoosena waa sidaas intaasi waa fahamtay farmaajo kambeynkiisuu bilowday ma raba inaan ku noqdo faarax cabdiqaadir iyo cali balcad oo damuljadiid kuwii ugu weynaa farmaajo ay u dhoonteen caw iyo faad yaasiin dilay ikraan tahliil faarax aw qaali guaad aw kuwii $6 loo tuuraayay ma arkaysa macnihii beenta sheegi jiray buushashkoodaa lagu gubay buushashkooda katarabiilaraa la geliyey hey mana hadli karaan sujuuddaa laga tooganaya xisaabta meeshaasay maraysaa waxaan u gudbaynaa xasan sheekh maxamuud ma baydhabaan aadaamse caabudu waaqa lambar wana caabudu waaq way shidan tahay waa waxa ciwaanka aan ugu soo qortay caabudu waaq intaanan aadin waxaan aadayaa lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuud lafta gareen wir bay ku kala tageen wir xamar waryaa macnihii doorashaa qabanuu yidhi aniga isug ayla tasho aan tashanno sida aan yeelno gala day wuxuu ku yidhi aniga aamusnaantaydii ma fahmin miya xasanow adiga xamar imow inay dhahday shib aan kaa dhahay ma fahmin miya horniyow tabartaada moog wuxuu yidhi haddii aad doorasho isku daydid etoobiyaanka oo bixi rabaa ciidamo eritreyana imaanaya waa kaa way kuu dhammaatay waa kaa waxaasuu yidhi waa isku filanahay yidhi ani dalkan u dhashay marti koyta kuma ahi aniga statekan anaa iskale anaa degan sida aan ku noolaanayana adig kulama tashanayo sheekada way qaraaraatay tabartaa bay noqotay xasan haddana uu soo kala fireeyey wuxuu yidhi lafta gareenow walaalow tabcaanaan ahay bareeshar caalamiya ay saaran deni wuu igu xumeeyey maamuladii gacanta kuma hayo walaalow adigana dagaalkaasi ha igu darsamin deni iyo ma arkaysa asxaabtan kale waxaaga iska qabso mooryaanta iska soo shabi ma arkaysa kuma soo faragashanaayo ma arkaysa macnihi aan kala nabad galno keliya adna dagaal ha igu soo qaadin anigana kuguma soo qaadayo tacabkiisi intaasay ku soo dhammaatay xasan sheekh maxamuud wuu taahayaa sababtaasaa keentay in farmaajo gurigiisa la isku shubo hadda talo kale lama hayaba haddee nacafi waa haddaa soo noqoto sayid farmaajow horta lafta gareen ma arkaysa macnihii libaaxaasi bannaanka degayuu noqday waan qabsanayaa u yidhi adna kuma weydiinayo dhulkaygana waa joogaa waay wax yar waxaan kuu gelinayaa dagaalka wii daarood intaanan aadin abagbeday oo ku taalla gobolka bakool ciidamada qaranka Maryland dagaal bay qaadeen halna kama dhiman kamana dhaawacmin intaan ognahay waxa weeye shabaab bay soo xasuuqeen hub bay ka soo qaateen basukayaal adduunyo waxaan u malaynayaa sawiradaasi waad ka arki kartaan baraha bulshada haddaad rabtiinna waan idin tusaynaa laakiin waqti badan ma hayo waxaad moodaa in stateka Maryland markaan si dhab ah shaqada uu qabanayo uu fahmay khiyaanada ma arkaysa macnihii qolyaan hawiye marna shabaab iska dhigaaya marna macnihii USC marna magaca dowladda hawiye iyo daarood bay arrintu taagan tahay sida runta ah xasan sheekh maxamuud rag buu diray raggaasi kaaga warrami maayo ugu dambayntii nin baa iswaalwaalay wuxuu yidhi hubkii hana la siiyo xamaraan la aadaynaa kuwii mareexaanka caabudu waaq loo diray fartaag maan mid kaloo la socday waxaa lagu yidhi nimayow naftiinnu ma hubaadna weydiinaysaan naftiinnu haddaan naga badbaadaan nasiib baad leedihiin baa lagu dhahay nimayona dhaafa haddii kale waxaa weye naftii inaad khatar gelinaysaan xisaabta iyadoo meesha joogta xasan sheekh maxamuud ugaaskii mareexaanuu la soo hadlay ugaaska mareexaankana waa ciyaalka xaafadda wuxuu ku yidhi ugaas ma arkaysa macnihii waxaasi waa inaa iska soo wareejisaa yaad wax u dhiibataa la yidhi adiga sidaadaba ma waxbaa noo dhiibata annaga maya war xaniyaaga fuula la yidhi niyo xasan sheekh maxamuud waa issoo maqiiqayaa uu yidhi ma issoo maqiiqaysaa weelkamaa la yidhi haddii aad caano sokor iyo ma arkaysa macnihii baraf la ysku qasay macnihii aad naga cabbaysid waan arkayna haddaan annagu burcad ku noqonnay diyaarad hub ah rasaas ah ama rasaas u badan ayuu xasan sheekh maxamuud dhuusamareeb ka dejiyey
su-aal baa isweydiin doontaa dhuusamareeb sow qoorqoor ma haysto sidee ku dhici kartaa xasan sheekh maxamuud inuu diyaarad rasaas u badan uu ka dejiyey saacadihii ugu dambeeyey isagoo dagaal u diyaar garoobaya raba inuu ismaqiiqo caabud waaq haddaba xasan sheekh maxamuud ciidamo ayaa u jooga dhuusamareeb oo xarunta galmudug ah ciidamo macuusleeya markuu meeshaa deganaa dagaalka wejiga koobaad uu yidhi ayaan gelayaa ciidamo macuusleeyuu sameeyey uu doonayay inuu ku dumiyo maamulka stateka maryland galmudug kuna weeraro caabud waaq iyo maarkaysa nimanka daaroodka kale ee maarkaysa puntland iyo goldogob kuwaasi weli way joogaan maarkaysa isagay ka amar qaataan qoorqoor kama amar qaataan marka ciidankaasi ayuu rasaas u geeyey iyo hub hal diyaarad baa ka degtay dhuusamareeb saacadihii ugu dambeeyey qoorqoorna berri buu ka yahay dagaal baa kala dhexeeya isagaa dhufays ku jira macnihii xasan wuxuu doonayaa inuu sii maqiiqo caabud waaq weerarka waa laba jibaarannimayo xasan sheekh maxamuud marka wuxuu doonayaa caabud waaq inuu weerar ku qaado ismaqiiqo uu yidhaahdo hubkii ma arkaysa gacanta iisoo geliya xisaabta markay sidaasi tahay nimanka daaroodka la yidhaahdo meel walba way istaabteen marka ilaa iyo jigjiga hadda aan kula hadlaayo ilaa iyo ma arkaysa laasacaanood ilaa iyo puntland daarood ma arkayse hoos bay u wada hadleen waxay yidhahdeen nimayo bahashaan haddii shalayna la dhahayay kaakuma iyo tanga ayaan ku shubnay oo ma arkayse xamar iyo koonfurta soomaaliya faqashna la yidhi meel walbana lagu dilay tookadan waxaa weeye daaroodow hawiye wuu soo dhigtay waxaa weeye inuu nagu soo duulo doonayaa hubkan isagaa watay hadduu qabsadana inuu nagu dulu doonayay ilaahay baa noo gacan geliyey gacantan yaan loo kala harin baa layidhi hawiye ma arkaysa cashar adag ha loo dhigo haddii ay soo maqiiqaan arrintan xasan sheekh keliya ma ahan odayaal hawiyaha ka dambeeya ciidamo hawiyaa lasoo daabulay oo ma arkaysa macuusley lagu sheegayo qarankiyaa la adeegsanayaa oo ma arkaysa diyaarad baa hadda dhuusamareeb laga soo dejiyey marka waxaa la yidhi tookadan ama daarood ha laga suuliyo geeska afrika ama hawiye ha laga suuliyo geeska afrika macnihii midkood ha la waayo haddii tookadan la isgacan saaro horta xisaabta meeshaasay joogtaa una malayn maayo in international communityga si deg dega ay ku dhex geli doonaan marka daaroodku waxay leeyihin tookadan waaba rabi lahaynba ma arkayse in hal mar gacanta aan isi saarno xisaabta meeshaasay joogtaa xasan sheekh maxamuudna wuxuu leeyahay waa ismaqiiqayaa haddii kale hubkii waa in aniga gacanta la iga soo saaraa marka caabud waaq baan weerarayaa haddii caabud waaq la weerarana daaroodku caawa oo dhan ilaa iyo saacadihii ugu dambeeyey maantay way istaabteen waxay yidhaahdeen dagaal saf ballaaran oo daarood iyo hawiye ah weeye dagaalkaasi ee ku fiirsan mayno in caabud waaq lasoo weeraro annagoo daarood aan iska fiirsanno meeshaan dowladii kama jirto waxaa weeye macnihii hal qabiil baa meesha jooga hadda qabiil ma arkayse in uuna soo weeraraana waa in la iska difaacaa horta cawada bahasha 180 digrii bay maraysaa to be honest anigu uma kaftamaayo xasan marka labo isku wadaa fiiriya macnihii inuu ismaqiiqana uu rabaa diyaarad rasaas u badan oo hub ah na uu ka dejiyay dhuusamareeb uu rabo inuu ku weeraro macnihi maba ka samraayo yidhi aniga hubkaasi waa in gacanta la ii soo geliyaa ha ama dukum daakum baan ka dhigayaa mareexaan iyo ma arkaysa inta soo raacda markaasi marka haddana geesta kale wuxuu wadaa ma arkayse macnihii hal mar ma arkayse waxaan rabaa inaan caabud waaqaan tago ma arkayse fartaag inuu ma arkayse macnihii ay israacaan oo xamar ka soo kaxeeyo macnihii madaxweynihii qarankan ahay isagoo dhahaya hadda ogow caabud waaq xasan sheekh maxamuud 2 sano uu joogaa ma tegay horta arfayriska arag caawa gantaalaha dhacaya arag sirtaanaa la diidaa arag diyaaradda hubka aan sheegayaa la diidaa arag macnihii daarood in ma arkaysa macnihii lagu duulaayo isagana uu isdifaacayo xasan sheekh maxamuud kir iyo kir inay ku kala tageen lafta gareen ma arkaysa macnihii ugaaska mareexaan in ma arkaysa yur iyo yur ay ku kala tageen xasan macnihii weerar uu diyaarinaayo waryaa intaas inaan sheegnay diidayaan wallaahi bilaahi dadka igu taxan way boodaan hadda baalkoo dhanaa gariira haddaan u jeeda haddana wuu soo noqdaa gaw war waxaa lasoo furaayo wax saalan maan bakistaaniyiintii ay adeegsadeen ayaa ma arkayse macnihii qalabkii imaaraatiga kuwaasay weli ma arkayse macnihii ay ku dagaalamayaan tabartiinu hadday intaas tabar ma lihidiin marka waan sheegay warkii uu baxay waxba lagama bedeli karo marka xasan sheekh maxamuud isagoo diyaarad rasaas ah uu ka dejiyey meesha la yidhaahdo dhuusamareeb saacadihii ugu dambeeyey
uu rabo inuu weerar ku qaado